saaka waxaan halkan ku qabanay shir jaraa'id shirka jaraa'idna wuxuu ku saabsan yahay ra'iisul wasaare mudane xuseen rooble ra'iisul wasaare waxaan ka sugaynay inaad noo soo dirto haddii aan nahay gobolka Gado shacab weynaha ku nool iyo dhammaan reer Jubbaland waxaan ka sugaynay oo aan runtii aan sugaynay oo aan lahayn wuu samaynayaa oo aan lahayn ilaahay idinkii maartay sheegeen socdaalkaagii aad ku tagtay Garbaharey oo aad soo aragtay oo aad soo qiimaysay oo aad soo bariday oo 2 maalin iyo habeen aad joogtay oo aad soo dirtay guddiga doorasho guddigii isha wasiirada ahaa oo 4 maamul goboleed ahaa ayaguna ay nala joogeen oo aan lahayn muddo ilaa 7 casho yahayd iyo ka badan ayaguna ay soo qiimeeyeen aad isu timaadeen xafiiskaaga gudihiisa ay kugu warbixiyeen wixii aad haysayna aad u dhiibtay waxay ayaga hayeenna ay ku dhiibeen markaad wada hadasheen shirki ka soo baxay codkii aad ku hadashay iyo sida qiimaha lahayd oo u hadashay waa recording way waa duubanta waxaad cadaysay shacabka ku nool gobolka Gado shacabka ku nool degmada Garbaharey odayaasha waxgaradka iyo maamulka iyo dadkii aad la soo kulantay ururada bulshada ahaa haday dhalinyaro tahay haday haween tahayba haday culimo u diin tahay inay yihiin dad aad u wanaagsan diyaarna u ah doorasho inay ka dhacdo dalka idaacadii baad ka sheegtay waa recording way waa duuban tahay waxaan sugaynay isjiid kadib inaad go'aan qaadato soo dirto guddiga doorashada ma aysan dhicin doorasho 3 guddi ayuu leeyahay sida sharciga oo nidaamka ah waa guddiga doorashada ee heer federaal waa guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga heer state way saddexdaas way guddiga doorashada waxaad noo soo dirtay ra'iisul wasaare saddexdaas qof aan ahayn ninka la yiraahdo Abukato Umar Dhagay ilaa ay hadda meel uu ka socdo iyo hawl uu qaban hayo iyo door uu ku leeyahay doorashada ma garanayn mana naqaan laakiin waxaan naqaanaa ninka la yiraahdo Umar Dhagay waxa uu yahay baan naqaanaa Umar Dhagay waa nin fidno badan waa nin isku dhufasho badan waa ninkii mas'uuliyiinta qaranka adiga iyo madaxweynaha qoorta isu kiingeliyay rag isu kiingeliyay buu kamid ah wuxuu kamid ahaa ragga fidno walayaasha aad baa loo yaqaanaa dadkii la soo shaqeeyay iyo dadkii madaxdu ahaa iyo dadka asaga madaxdu ahaaba ninka asaga ahaa ayaad noo soo dirtay meeshaas marka meel aad nabad ka rabto ama inay ka dhacdo doorasho aad ka rabto ra'iisul wasaare ma xaqiiqada la isu sheega fiican waxa weeye reer loo diray Umar Dhagay meeshaas meel ay wax ka soo baxayaan ma Umar Dhagay dadka reer Gado waa nin aad u nacab way waa nin aan jeclayn way waa nin waxa weeye fidnadiisa iyo dhibaatadiisa ummadda Soomaaliyeed ay xog ogaal u tahay way doorna aan ku lahayn kaalina aan ku lahayn guddi doorasho ma aha guddi xalin khilaafaad ma aha guddi heer federaal ma aha guddi heer state ma aha shalay baa u dambeysay guddiga asaga la shaqeynayay oo aad tiri guddigaas yaan soo wada dhiso 7 aha 6 kale xalay eedeynaysa 6 kale yaa xalay eedeynaysa waxay ku eedeynayaan shaqaantiisa ahayn inuu galay oo uu galahay shaqadu u socdo in Garbaharey doorasho ka dhacdo Umar Dhagay ma aha ra'iisul wasaare mana soo tabinayo
mana soo sheegay Kismaayo wuxuu ugu socdana waa fidno wuxuu Garbaarey ugu socdana fidno annagu marka waxaan ognahay Cumar Dhegay waxa uu ku socdo inay laba qodob tahay doorashada in dib loo dhigo inuu rabo oo doorashada la saseejiyo oo doorashada la iska daba wareejiyo qodobka kale wuxuu u socdo waxa weeye meeshaas inaysan nabad ka jirin wanaagna ka jirin wixii aad soo sheegtay oo adiga aad miidiyaha uga hadashay yaa qorshihiisa yahay inuu beeniyo yiraahdo wixii aad ra'iisul wasaare soo aragtay adigii rag kale waxba kama jiraan meeshaasna meel wax lagu qaban karo ma waxa weeye marka nin sidaas ah oo intaas oo dhibaato leh oo doorku ku leeyahay aan aqoonin waxa uu ka socdo aan aqoonin oo aadan balad weyn u dirin oo aadan gaalkacyo u dirin oo aadan u dirin baraaw oo aadan baydhabo u dirin waa maxay sababta annaga noogu soo dirayso waa arrinta ilaa hadda aan isweydiinayno ra'iisul wasaare arrinkaas arrin aan ku qanacsanahay ma aha annagana nin cadow ah oo reer gada aan arki karin oo cadownimo u qaba oo fidno wala ah waxa weeye inaad noo soo dirto annaga raalli kama nihin ma rabno waxa weeye nin ilaahay kuma qaadatay xaalkiisa ilaahay og yahay weeye waxaan rabaa Cumar Dhegay wixii uu la yimaado oo Garbaarey kala yimaado oo dadka doorashada maanta sugahaya ee reer Garbaarey waxa ay sugahayeen waxaan ahayn inuu la imaan hayo ra'iisul wasaare inaan ognahay ogow ra'iisul wasaare inuu rabo ninkaas inuu doorashadiisa seejiyo doorashada iska daba wareejiyo inuu rabana waan ognahay labadaas qodob annagoo ku og oo aan ognahay baad adigana aad ku ogtahay yaad annaga Cumar noo soo magacaawday Cumar marka doorkiisa door aan naqaan ma waxaan rabaa inaan halkan kaaga sheego hadday meeshaas wax ka halaabaan ama doorashadaas dib u dhacdo ama fidnada annaga aan tuunsanahay Cumar Dhegay keeno mas'uuliyadeeda ciddi soo dirtay baa mas'uulka ah ogaada beesha caalamka ogaada daneeyaasha doorashada ogow ra'iisul wasaare wax allaale wuxuu la yimaado oo labadaas qodob ah oo aan ognahay inuu fidno wala yahay inuu doorashada dibadaabyeenayo inuu rabo inuu Garbaarey waxaysan lahayn ka soo gudbiyo adigoo og baad u magacaw adoo yaqaanaad u magacaw waxa uu ku keenayana waxa iyaga ah mas'uuliyadaas ayada ciddi Cumar Dhegay dirtay yaa qaadanayso anigu intaas rabaa inaan idin sheego mahadsanid